shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed afayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan ayaa waxa uu kaga hadlay dhibaatooyin uu sheegay in shabaabku ay u geysteen dad shacab ah oo ku sugan deegaanada ay maamulaan. Cabdicasiis Xildhibaan waxa uu ugu horreyn uu sheegay in shabaabku ay dileen dad shacab ah oo ay ku eedeeyeen inay surdoon u yihiin dawladda federaalka isla markaana aanay surdoon ahayn. sidoo kale waxa uu sheegay in dad ay xoolahoodii dhaceen iyagana ay gowraceen. todobaadyadii la soo dhaafay magaalooyin iyo deegaano ka tirsan deegaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxay maleeshiyada al-shabaab ku boobeen sida naloo soo sheegay oo naloo xaqiijiyay dad goobjoog ah geel fara badan dadkii lahaana ay gowraceen. sidoo kale waxay dileen 5 qof oo aanan hadda magacyadooda haynin laakiin aan idin doono iyaga oo ku eedeynaya inay u adeegayeen dad shisheeye ama dawladda federaalka ee Soomaaliya. dadkaas iyaga ah ee ay waxyeeladu ka soo gaartay waa u tacsiyadeynaynaa qoysaskii eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen. maalinta ay haboonaatana waxaan u xaqiijinaynaa in cadaaladda la horkeeni doono xubnaha ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ee dhagarqabayaasha ah ee geystay dilkaas isaga ah. dhinaca kale afayeenka wasaaradda amnigu waxaan wax ka weydiinay dilalka maalmahan ku soo noqnoqonaya magaalada Muqdisho ee loo geysanaya dadka shacabka ah sababta ciidamada ammaanku ay uga hortagi laayeen maadaama qaybo badan oo kamid ah wadooyinka Muqdisho ay xiran yihiin iyadoo ciidamada ammaanka ay joogaan oo boolisna sugu jira wadooyinka qaar ay xiran yihiin. maxaad isleedahay maxaa sababaya in inta qof lagu dilo xamarweyne oo madaxtooyada u muuqda haddana la baxsado dadkii dilka geysanaya baxsadaan arrintaasi Soomaa habacsanaan laamaha amniga haysata. taliska ciidanka booliska ee aan dhex taagannahay waxay har iyo habeen u taagan yihiin sidii ay shacbiga Soomaaliyeed ugu xaqiijin lahaayeen ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed. waa la socotaan goob kasta oo uu ka dhaco waxyeello ay ka dhacdo in ay isla markiiba soo gaaraan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo laamaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. adduunyadu waa ka dhacaan dilal dadkii geystayna waa baxsadaan laakiin ka daba tag ayaa jira. dawladda Soomaaliya waxay ku dadaalaysaa inay ka hortagto maaha inay ka daba tagto waxay ku dadaalaysaa dawladda Soomaaliya sidii ay uga hortagi lahayd dhagaraha ay maleegayaan. annagu waxaan shacbiga Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaankooda wixii war ah oo ay helaan inay la soo socodsiiyaan laamaha amniga si aan uga hortagno qatarahaas iyaga ah ee shacbiga ku soo wajahan. al-shabaab ayaa toddobaadkii hore degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ku dileen 5 ruux oo ay ku sheegeen inay u shaqeeyaan sirdoonka Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka dariska la ah Soomaaliya. Axmed Saciid Axmed, telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.